kulan waxaan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan channelka tusmada filmada iyo sidoo kale update-ka kale ee mar kale soo kordhay kuwaas oo asnaana daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada mar kale waa la wadaagi kartiin meel walba oo joogtaan waxaan hawadayn kale nahay jimco wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warbixintan kaas oo aan ku eegi doono Kajal ayaa markan waxay dib u lumadowday toori ugu horeysay kala soo muuqatay filmkeeda ku soo canbaxday kaas oo lagu magacaabo Kamal Sadana Bollywood actress Kajal ayaa markan waxay ay mashquul ku tahay filmkeeda soo socda Salaam Funky taas oo filmkaasi tan markii uu soo baxay goosgooska filmkaasi ay noqotay mid markaani dadka si weyn u soo dhaweeyeen filmkaani iyo soo kala daawadayaashaba in marka laga soo tago filmkaasi ee dib ugu mudoobin American iyo sidoo kale Kajal ayaa sidoo kale waxa jira in filmkaani soo kale lagu arki doono in Kajal dib u mudoobday jalaaga kula soo canbaxday filmka Beequdi kaas oo la daawado 1992 waxayna labadan ay midoobeen Kamal Sadana iyo sidoo kale Kajal muddo 30 sano kadib Kamal ayaa wuxuu ka soo muuqday filmo jacayl ah kuwaas oo sidoo kale ay ka mid yihiin Rangi kaas oo la daawado 1993 sidoo kale wuxuu kala soo muuqday filmaan tirishooyinka sagaashameeda caanka ah Aisha Thulka Divya Bharti kuwaas oo sidoo kale uu kala soo muuqday filmooyin caan ah jilaagan ayaa film jelista waxa ugu dambeysay sagaashameedii intaas kadibna wuxuu u bedeshay inuu director noqdo iyo sidoo kale film soo saare qaybta Salaam Funky ayaa markan waxa la sheegay in Kamal uu ku lahaan doono door muhiim ah markaanu ka hadalna Kamal iyo doorkiisa filmka waxa uu sheegay in uu dib u duubo film mar kale waxay ka dhigan tahay uu sheegay in uu ku sugan yahay goobta lagu duubay filmka Beequdi kaas oo la daawado 1992 waxaana sidoo kale uu sheegay in Kajal wali ay tahay qof hadal badan oo hadalka aan joojinin sidoo kale waxa uu sheegay in kaliya aad rabto inaad kursi la fadhiisto sidoo kale qosolka labada dhinac uu ku kala rago asaati waxa uu sheegay inuu ka dhaxlay farxad aad u wanaagsan waxaana sidoo kale sheegay inuusan ka hadli karin wax badan oo ku saabsan doorkiisa filmka asaati waxa uu sheegay inuu la yaabay qaabka filmkaasi loo dhigay iyo sidoo kale goosgooska filmkaasi wuxuu sheegay sidoo kale qofnaysan ku habboonayn inuu ogaado doorkayga asaati filmka waxa uu sheegay in doorkiisa uu yahay mid directorkiisa uu yahay mid ku saabsan hadalooyin sidoo hadalka u dhigay Kajal ayaa sidoo kale waxay ka hadashay la kulanka Kamal muddo 30 sano kadib waxay sheegtay in 5 daqiiqo iyo 10 daqiiqo ugu horeysay ay sheegtay inaysan wax hadal uusan ka soo foqon kaliya in ay qeylinaysay waxay sidoo kale sheegtay in wax lagu farxay ahayd sidoo kale ay sheegtay la kulankooda iyo sidoo kale in iska warhayaan ay tahay mid xilli walba dhex jirta asaati waxay sheegeen markaan ay dibna ula shaqeysay ka dhigan tahay in wax ku farxado waxyaaba xiiso leh wuxuu yahay goobta lagu soo bandhigay goosgooska filmkaas Salaam Funky ayaa directorka filmkaas Rafati waxay sheegtay in aysan Kajal u sheegin doorka filmkaas Kamal uu ku leeyahay asaati waxay sheegtay in ay jirto muuqaal muhiim ah kaas oo filmkaas ku jiro taas oo ay surprise ugu dhigtay tirishada Kajal filmkan Salaam Funky waxa lagu wadaa in la daawado December 9keeda ee bisha soo socota filmkaas ayaa muuqaal gaar ah waxa ku leh American kaas oo markaan la wada sugayo muuqaalkiisa iyo doorka filmkaas ku lahaan karo filmkan wuxuu ku saabsan nolosha Kajal oo hooyo u joogta hal wiil kaas oo wiilkeedu uu xanuunsan yahay sidoo kale cudur uu qabo taas oo keenaysa in Kajal u dagaalanto sidoo kale wiilkeena farxad ay siiso filmkan ay sidoo kale wuxuu yahay mid markan aad loo wada xiiseynayo intaan ku soo xirnaa warbixinteena iyo sidoo kale wararkeena kale marka la soo koray kuwaas oo la xiriir xanta jalaasha filmada soo baxay waxyaabaha kala sanan xiiso lahaayeen meel walba oo joogtaan jimco wanaagsan haddii warbixinaha ka heshaan leeg inoo saaray si dad badan u gaaro sidoo kale asxaabtiin la wadaag wad kuma sintiin Allah basad inoo dhirigelisan oo muuqaaladan u daawataan kankiisa xigana nabadino